haddii uu qofku weydiiyo magaca hooyada oo saddexan ha u sheegin. ma ogtahay daawade jinka iyo shayaadiintu inay ugu neceb yihiin adduunka dadka tukada salaada casar? daawade imise jeer ayaad waalidkaa ka maqashay amba ay ku yidhaahdeen xilligan waa maqaarib ee bannaanka ha u bixin, soo gal guriga waa maqribe, carruurta ha saarin xilligan bannaankana ka soo xaree waa maqaaribe, dharka bannaanka ku wadhanna ka soo gur waa maqribe. imise jeer ayay hooyadaa kugu tidhi hadalkaas? maad garanaysaa sababta iyo sirta ka dambaysa inay hadalkaa ku yidhaahdaan waalidkaagu? haddaba anigaa maanta kuu sheegaya. ma ogtahay labada salaadood ee ku adag qofka munaafaqa inuu tukado? ma garanaysaa oo weligaa ma maqashay labadaas salaadood kuwa ay yihiin? daawade ma ogtahay xilliga uu soo baxo qof kastoo xun rabana inuu wax xun sameeyo, xilliga ay maleegtaan kulmaanna dadka xunxun iyo shayaadiintuba, waqti waxaa jirta ay soo wada baxaan kii dib jirka ahaa, kawaalan iyo sarqaankuba, dhammaan wax kastoo xun xilligay soo baxaan ma garanaysaa? haddaba anigaa maanta kuu sheegaya. ma ogtahay inay jiraan wakhtiyo uu jinku yeesho quwad iyo awood xoog badan, xilligaana waxay dib u cusboonaysiiyaan sixirkii ay xirxidheen si dadkii ay sixreen xanuunku ugu sii bato. wakhtigaasina xilliguu yahay weligaa ma maqashay? ma ogtahay daawade inay jiraan astaamo lagu garto saaxiriinta kuwa dadka sixra? iska ilaali qofkaad ku aragto astaamahan. ma ogtahay daawade jinka iyo shayaadiintu inay ugu neceb yihiin adduunka dadka tukada salaada casar? xitaa sixiroole kastaa markuu rabo in hawl loo qabto, jinkuna wuxuu ku xujeeyaa inuuna tukan salaada casar, weligiina fooda dhulka aanu dhigin. maad garanaysaa sababta? haddaba anigaa maanta kuu sheegaya. soo dhowow marka la daawade, waa anigoo ah Nadare Siciid. laga yaabaa haddii aad igu cusub tahay inaanad mar kale ii arag, haddaba isoo falowgaree imika iguma khasaari doontide. 300,000 oo falowerisa waxay nooga dhiman dhanka Facebook page-ka wax yar, 5,000 oo keliyaata ayaa inooga dhiman. qof kasta maanta intuu isxilqaamo 3 qof oo ka mid ah asxaabta kugu jira Facebook-ga u shargaree page-kan. sidoo kale daawade xaqiisa sii muuqaalkan oo like saar. mahadsanid. daawade imise jeer ayaad waalidkaa ka maqashay amba ay ku yidhaahdeen xilligan waa maqaarib ee bannaanka ha u bixin, soo gal guriga waa maqribe, carruurta ha saarin xilligan bannaankana ka soo xaree waa maqaaribe, dharka bannaanka ku wadhanna ka soo gur waa maqribe. imise jeer ayay hooyadaa kugu tidhi hadalkaas? maad garanaysaa sababta iyo sirta ka dambaysa inay hadalkaa ku yidhaahdaan waalidkaagu? sababtu waa xilliga jimanka iyo shayaadiintuba bannaanka ay u soo baxaan, waa xilliga uu ugu awooda badan yahay. jinku wuxuu yeeshaa quwad iyo awood fara badan, xilligaasna xitaa waxay dib u cusboonaysiiyaan sixirkii ay xidhxidheen si dadkii sixranaa uu xanuunku ugu sii bato. wakhtigaasna waa salaada maqrib cadceedu markay qarsoonto, xilligaa haddaad qur-aanka akhrisato ilaahayna tala saarato, awoodda jinku way daciifaysaa, heer waxaad gaadhaysaa uu qur-aanku kaa furfuro wixii ay kugu sixreen. ma ogtahay labada salaadood ee ku adag qofka munaafaqa inuu tukado? ma garanaysaa oo weligaa ma maqashay labadaas salaadood kuwa ay yihiin? qof kastoo munaafaqa waxa ku adag inuu tukado salaada casar iyo salaada subax, waayo salaada subax waa xilli hurdo, sidoo kalena jawigu aad buu u qabow yahay. shayaadiintuna waxay qofka ku yidhaahdaan iska sii seexo, waxba ha kicin, hurdo ayaa ku haysaa. sidoo kale salaada casar munaafaqu ma tukan karo, way ku adag tahay, waayo waa xilli uu qofku daalan yahay, waa waqti uu qofku nasanayo amba uu shaqo ka yimid. waa sababta ay munaafaqa ugu adkaanayso inuu tukado labadaas salaadood. daawade ma ogtahay xilliga uu soo baxo qof kastoo xun rabana inuu wax xun sameeyo, xilliga ay maleegtaan kulmaanna dadka xunxun iyo shayaadiintuba, waqti waxaa jirta ay soo wada baxaan kii dib jirka ahaa, kawaalan iyo sarqaankuba, dhammaan wax kastoo xun xilligay soo baxaan ma garanaysaa? xilligaasina waa habeenkii, waa salaada maqrib kadib markuu jawigu isbedelo, dhulkuna uu mugdi noqdo, lagalana habeenimo. waa xilliga keliyaatay shaqaystaan shayaadiintu, xitaa xilligaana waxa bannaanka
u soo baxa qof kastoo xun, kii dib jirka ahaa, kii sarqaansanaa, sixiroolihii, qof kastoo raba inuu wax xun sameeyo. Xilliga keliya atuu soo baxaa waa habeenka, waana wakhtiga keliya atay shaqaystaan waxay doonayaanna ay qabsadaan. Haddii aad gabar tahay fideogana aad daawanaysid, su'aal ayaan ku weydiinayaa, kaga soo jawaab dhanka kommentiga. Inanay walaalka amba aabbaha, hooyada weli ma dhacday inay kugu dilaan maxaa habeen bannaanka kuu saaray? Walaalkaa kula dhashay ma dhacday inuu kugu dilo habeenaad bannaanka u baxday? Waalidkaa ma ku odhan jireen habeen ma bixi kartid waayo gabadh ayaa tahay? Sababta ka dambaysa haddaba waa taas. Habeenkii hadday gabadhu baxdo waxay la kulmi kartaa wax kastoo xun iyo nin kastoo dib jira, oo waxaana dhici karta inay dhibaato u geystaan. ma ogtahay inay jiraan waqtiyo uu jinku yeesho quwad iyo awood xoog badan? Xilligaana waxay dib u cusboonaysiiyaan sixirkii ay xirxidheen si dadkii ay sixreen xanuunku ugu sii bato. Waqtigaasina xilliguu yahay weligaa ma maqashay? Xilliga uu jinku yeesho awoodda ugu faraha badan waa salaada maqrib marka la gaadho. Xilligaa waxaa bannaanka u soo baxa jimanka iyo shayaadiinta. Quwad iyo awood xoog badanna way yeeshaan, iyagoo welibana dadkii sixranaa amba ay sixreen dib ugu cusboonaysiiye sixirka si uu qofku u xanuunsado, sidoo kalena aanu u tukan salaada maqrib. ma ogtahay daawade inay jiraan astaamo lagu garto saaxiriinta kuwa dadka sixra? Iska ilaali qofkaad ku aragto astaamahan. Haddii uu qofku weydiiyo magaca hooyada oo saddexan, ha u sheegin. Sidoo kale haddii lagu diro xoolo leh astaamo gaara amba tilmaamo khaasa sida wan madax madow, diig cad iyo waxyaabo la mida, iska ilaali inaad doonto amba aad keento, kana fogow qofkii kuu diray, waayo qofkaasi waa sixiroole. waa astaamaha ugu horeeya ee lagu garto qofka saaxirka. ma ogtahay daawade jinka iyo shayaadiintu inay ugu necab yihiin adduunka dadka tukada salaada casar? xitaa sixiroole kasta markuu rabo in hawl loo qabto, jinkuna wuxuu ku xujeeyaa inuuna tukan salaada casar, weligiina fooda dhulka aanu dhigin. mad garanaysaa sababta? sababtoo ah jinku wuxuu ku necab yahay salaada casar dadka tukada. waa xilliga malaa'igtu iskala beddesho. malaa'igtii hore u joogtay ayaa tegaysa oo kuwo kaloo cusub ayaa lagu beddelaa. waa xilliga warbixinta laga gudbiyo qofka mu'minka. malagii wuxuu tegayaa adigoo salaadii casar ku jira. ilaahayna wuxuu ku odhanayaa, ilaahow addoonkaagii waxaan ka yimid isagoo salaadii casar tukanaya. malaa'igtii kalee timid iyaguna warbixinta ugu horeeya ay kaa qorayaan waxay noqon doontaa iyagoo ilaahayna ku odhanaya, ilaahow waxaan u tegay addoonkaagii oo salaadii casar ku jira. markaa jinku wuxuu nagala dagaalamayaa mar kasta in laynaga qoro warbixin wanaagsan. waa anigoo ah Nadare Siciid. waad ku mahadsantay daawade haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. laga yaabaa inaanad mar kale ii arag, haddaba isoo falow garee imaka, iguma khasaari doontide. waa inooyo mar kale iyo fideoga kan xiga.